waxaan leeyahay haddii qof halkan fadhiyo uu shaki ka qabo awoodda iyo xoogga gabdhaha Soomaaliyeed batuula marqaati kaaga haddii qof halkan fadhiyo ka walwalsan yahay in gabdhaha Soomaaliyeed ay ka shaqayn doonaan inay xaqooda helaan codkii batuula marqaati kaaga haddii qof uu shaki ka qabo sababta aan 30 sano ayadoo dawladdeenu xun tahay aan soo gaarnay meesha aan soo gaarnay codka batuula marqaati kaaga intaas kadib mudane madaxweyne dhacna gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare wasiirada dhammaan madaxda gudoomiyaasha dowlad goboleedyada golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal dhammaan bulshada kala duwan ee halkan joogto ay ka mid tahay dadka ka yimid dibadda gabdhaha Soomaaliyeed bulshada rayidka saxaafadda iyo cid walba halkan joogto waxaan idin leeyahay marka hore waa maalin weyn waa maalintaas taariikhda mudan waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay qof walba inuu gashado kalendarkiisa maanta waxaan u hambaleynayaa guddiga soo qaban qaabiyey shirkan waxaan rabaa inaan idin sheego in halkan aan lagu imaan dhib yaraan halkan waxaa lagu yimid sida uu idiin sheegay Cabdi Qaybdiid iyo wasiir Xoosh halkan waxaa lagu yimid isjiijiid halkan waxaa lagu yimid anaa ka fikir wanaagsan iyo anaa ka fikir wanaagsan halkan waxaa lagu yimid anaa Soomaaliya ka jecel iyo anaa Soomaaliya ka jecel halkan waxaa lagu yimid xuquuq hadal baa ka maqan iyo xuquuq hadal baa ka maqan marka ugu dambaysa laakiin waxaa halkan ka muuqata haddii la isticmaalo kartida iyo dhabarayga gabdhaha Soomaaliyeed oo aan la isdiibin in la soo gaarayo meeshaan maanta soo gaarnay maadalintaas ka sokow waxaan rabaa inaan idin sheego dhamaystirka dastuurka waxa uu qayb ka yahay ahmiyadaha waaweyn ee hor yaalla haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed haddii aan nahay kuwa ammaanada haya iyo kuwa ammaanada loo dhiibtay waxaan rabaa inaan idin sheego marka lafdhabarka shaqada dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo waxaan ugu ra'iisul wasaaraha ka ahay waxa ay ku fadhidaa sidii awoodda ay haystaan kuwa loo dhiibtay ammaanada oo anigu ka mid ahay loogu soo celin lahaa kuwa ammaanada u dhiibtay oo ah idinka meesha fadhiya waxaan rabaa qof walba idinka mid inuu ogaado dowladnimadu waxay soo dhamaystirmi doontaa ma aha keliya marka la dhamaystiro dastuurka qabyada dowladnimada asaaskeedu wuxuu soo dhamaystirmi doonaa marka shacabka Soomaaliyeed gacantiisa lagu soo celiyo awoodda dowladnimada arrimaha aan ka shaqeyno kulliyan waxa ugu horeeya arrimaha amniga cadaaladda iyo dib u heshiisiinta waxaan ka shaqeynaa kobcinta dhaqaalaha dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dib u falgelidda hay'adaha dhaqaalaha adduunka la dagaalanka musuqmaasuqa oo wiilka halkan istaagay uu yiri waxaan sugaynaa maalinta dad loo soo qabto waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha aqalka sare inuu xusuusnaado sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa isaga inuu hor yaallo marka la soo dhameystirana la dhisi doono guddigaasina ay ka shaqayn doonaan waxa aad codsateen waxaan ka shaqeynaa tubta dhammaystiran ee sida loogu adeegi lahaa dowladda